gudoomiyaha degmada Qurulugud Maxamed Cumar Jarkunaban ayaa maanta ku qabtay magaalada Hargeysa Jirjiraayid kaasi oo uu kaga warbixinayay xaaladda guud ee degmadaasi ugu horeyna Master Jarkunaban gudoomiyaha degmadaasi ayaa ka waramay mudaharaadyo maalinimadii shalay ka dhacay degmada Qurulugud isagoo sheegay in sida ugu dhaqsaha badan gacanta loogu soo dhigi doono dadkii ka dambeeyay ee soo abaabulay mudaharaadkaasi ay ka dhacay degmada Qurulugud daharaad aan looga baran deegaanka inay waxa soo kale ka dhacaan runtii waxa ka faa'iideystay dad qaab qaran dumisnimo ah ama siyaasada dadban oo xun leh ya ka faa'iideystay waxaan u ballan qaadaynaa in aanu tallaabo cad ka qaadno cid kasta oo arrinta ka dambeysay ciidanka booliska ka wardoonka waxay ku amran yihiin oo ka shaqeynayaan oo ku howlgaleen oo ka shaqeynayaan daba socdaan ciddii falka geysatay ama ka dambeysay sidoo kale Master Jarkunaban ayaa waxa uu ka codsaday xukuumadda inay la soo gaaraan isla markaasina ay baahi weyn u qabaan gaari booliis taas waxay keentay gaari booliisku aan lahayn gaari ka howlgala oo gaari degmo booliis aad u fadhiyo gaarigii degmadu uu fadhiistay gobolka Togdheer yaalo muddo dheerna aanu ka hadlayno lahayn ama gaarigii hal soo sameeyo ama degmada gaari xukuumadda hasiisa la siiyo taliska booliska kala hadlaynay iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan codsanayaa in nalagala howlgalo arrinta waxaan ka codsanayaa jaranka ciidanka booliska wasiirka arrimaha gudaha yaan ka codsanayaa inay arrinta gacan naga siiyaan haddii ilaahay ka dhigo isagoo sii wata hadalkiisa gudoomiyuhu ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka Buuhoodle ugu dambeyntiina Maxamed Cumar Faarax gudoomiyaha degmada Qurulugud ayaa u mahadnaqay wasiir Cali Mareexaan oo soo gaarsiiyay goobaha ay ka jiraan abaaruhu booyada biya gurmad degdega waxa jira degmada Qurulugud waxay helay hogol baa heshay gudaheeda iyo agaarkeeda ma gaarsiisna balle calanle iyo coodan le inta u dhaxaysa coodan iyo Qurulugud roobkeedu sax maaha waa yar yahay waxaan kaloo baaq u jeedinayaa xukuumadda in ay arrinta dadka maatada jilicsan biyo iyo baad bal soo gaadho waxaan u mahadcelinayaa wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Ali Maxamed Xasan Ali Mareexaan oo sidii looga bartay kaalmo degdeg oo biyo gaarsiiyay dadka jilicsan iyadoo muraayada Gandahaar Kaartaabreed qabruul Arabalambal intaas oo deegaanka imanayay ee badnaa uu gaarsiiyay biyo loogu shubay halka oo ay ku cabeen oo ku gaareen halka biyo ku jiraan Qurulugud degmada Qurulugud ku gaareen waa Cabdiqani Jaamac Kaarshe telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.